Anastasia Mikwa waxa ay ka mid ahayd ardaydii ka badbaaday weerarkaasi oo ay ku dhinteen 150 qof. Dhowr rasaas ah ayaa uga dhacday lugaha, caawinad la'aanna ma socon karto, waxaana lagu qasbay in ay sanad dib u dhigato waxbarashadeeda. Isku geynna waxa ay gashay 32 qalliin. waan qalin jebin lahaa taa oo ka dhigan maadaama aan qaatay koorso saacadan waa la ii shaqaalaysiin lahaa nafsadayda iyo dadkayga ayaan anfici lahaa wax walba waan lumiyey horumar ayaan gaari lahaa labadii abriil sanadkii 2015 ayaa rag hubaysan waxa ay weerareen jaamacadda Garissa. Kuwa badan ayay dileen, kuwana la haysta ayay ka dhigteen. weerarka ayaa socday 6 saacadood ka hor inta uusan booliska ka hortaga argagixisada oo uusan soo afjarin xasuuqa. wax yar kadib weerarka 4 rag ah ayaa la xiray, balse dhammaantood waa ay diideen eedaha ah in ay galeen fal argagixisinimo. Anastasia iyo qoyskeeda ayaa go'aankani waxa uu yahay fursad ay cadaalad ku heleen. halka shay ee marka ugu horreysa aan ku ducaysano ayaa ah in ay bukaanadu caafimaadaan. maskaxahaan ayay noo dhaawacday, waxay la ciyaari jirtay asxaabteeda, haddase ma awoodo, taana wayna dhaawacaysaa. waxaan sugayna waa cadaalad si ay nolosheeda u sii wadato, ayna u hilmaanto wixii dhacay. 4 sano kadib weerarkaasi noloshu caadi ayay ku soo laabatay, balse arday badan oo joogay halkan xilligaasi ayaa jaamacado kale ku biiray. Maamulaha jaamacadda ayaa sheegaya in weli dhacdadaasi ay baaqi ku tahay qulubtiisa. arrintan muddo ayay soo jiitamaysay, waad garanaysaa. dib u dhac ayaa ku yimid cadaaladda wakhti hore, si uun in wax looga qabto ayay dadkan ahayd. kiiskan ka dhanka ah 4 nin ee la soo eedeeyey ayaa socday muddo 4 sano ah oo mar walba dib ayaa loo dhigayay, balse dhibanayaasha ayaa filaya in xukunkani uu soo xiro baalka naxdinta leh ee noloshooda.